Marka uu qofku dhageysanayo waxay codadkaasi jidhka qofka si toos ah unugyo xubin ay u dhex jibaaxaan, kadibna maskaxdii loo diro fariin sheegaysa in jidhku dagaal ku jiro. Dabcan waxaynu ka hadlaynaa waa muusiga ama muusiga kulul oo aynu muuqaalkeennan ku soo qaadan doono. Magacaygu waa Jimcaale Daahir, bartanna waa Salgaadh Media. Shay kasta oo laga hadlayo waxaa habboon in qeexitaan loo sameeyo, bal aynu isla fiirino qeexitaanka muusiga ama muusiga kulul. Kan ugu wacan ee qeexitaanka muusiga ayaa ah cod farshaxan leh, habaysan, lehna dhawaaq soo jiidanaya qofka dhegeysanaya. Intaynaan u gelin dhibaatada muusiga kulul, aynu eegno sida uu u shaqeeyo habraaca jidhka aadamuhu. Dhammaan qaybaha jidhka aadamuhu waxa uu ka kooban yahay unugyo, xididdo, halbowlayaal, habdhisyo iyo wixii la mid ah waxa uu shaqeeyaan habraac gooni ah. Mar kastoo habraacaasi uu u dhow yahay fikrada iyo abuurta aadamaha dabiiciga ah, waxa uu jidhku noqdaa mid isu miisaaman oo si sax ah u wada shaqeeya. Waxa uuna saameyn togan oo toos ah ku yeeshaa caafimaadka qofka, jidh ahaan, caqli ahaan, iyo nafsad ahaanba. Habraaca jidhka aadamuhu waxa uu ka qayb qaataa weliba door weyn qaabka uu shaqeynayo caqliga aadamuhu. Haddaba marka uu qofku dhageysanayo habdhac jabaqeed aan la jaanqaadayn habraaca dabiiciga ah ee jidhka, ha noqdo codad uu qofku iskiis u dhageysanayo ama mid lagu qasbay, waxay cadaadis, daal, tamar lumin badan ku keenaan jidhkiisa. Cilmi baadhisyo badan ayaa lagu sameeyay ayaa lagu caddeeyay in codadka aan waafaqsanayn habraaca jidhka ee qofku ay saameyn taban ku keenaan jidhka aadamaha. Buuni isaguna lagu magacaabo Bart Benningis ayaa sheegay in dhageysashada muddo badan ee muusigu ay keeni karto dhimasho. Haddaba maxaa ku dhaca qofku marka uu dhageysanayo muusiga kulul? Waxay toos u dhex galaan jidhka qofka, xubin unugna way u dhex jibaaxaan, kadibna maskaxda waxaa loo diraa fariin ah in jidhku dagaal ku jiro. Maskaxduna isla markaaba waxay soo daysaa dheecaannada dagaalka. Waxaa kolkaaba kor u kaca heerka cadaadiska dhiigga, garaaca wadnaha, iyo kaloregalka. Heesaha muusiga kululay waxay si toos ah u abbaaraan unug kasta oo ka mid ah jidhka aadamaha. Jidhkuna waxa uu la dhaqmaa sida xanuunka oo kale, oo waxa uu soo daayaa dheecaan xanuun baabi'iye ah oo lagu magacaabo endorphin, isla jeerkaana u shaqeeya sida daroogada oo kale, kaasoo keena raynrayn iyo farxad mala awaal ah. Tanina waa sababta dhalinta heesaha, iyaga oo moodaya inay farxad ka helayaan, ay u dhageystaan heesaha markaasi. Haddii aad raacdo dadka dhegeysta heesaha markay cabbaar baxdaba, waxay ku odhanayaan inoo dalac. Sababta ay taasi u dhacdo ayaana ah in xaddigii dheecaanka ee jidhku uu soo daynayay ee farxadda khiyaaliga uu jidhku la qabsaday, waxaana uu u baahan yahay xaddi cusub in lagu soo daayo. Haddaba bal aan eegno muxuu keenaa dhegeysiga heesahaasi ama muusiga kulul. Waxa uu keenaa maqalka oo daciifa, dhegel la'aan. Waxa uu dhaawacaa unugyada yaryar ee dhegta ku jira, kuwaas oo shaqadoodu ay tahay inay jabaqda u beddelaan wax la fahmi karo, kadibna ay u diraan maskaxda. Haddii ay unugyadaasi dhaawacmaana, ma jirto si loo daaweyn karo iyo cid daaweyn karta midna. Daraasad ay sameeyeen aqoonyahano Jarmal iyo Jabaan ah, laguna baadhay heerka xasuusta ee dadka heesaha muusiga dhegeysta, ayaa lagu sheegay inay xasuustoodu lunto heerka 15 ilaa 60% ama boqolkiiba 15 ilaa 60, taas oo ka dhigan inay yihiin dadka ugu qalbiga madow dadka dhegeysta heesaha ama muusiga. Daraasad kale oo lagu sameeyay dad aan dhegeysan muusiga da'dooduna u dhaxayso 16 ilaa 28 jir, ayaa lagu caddeeyay in boqolkiiba 4 xasuus yaraan haleeshay, taasoo inoo caddaynaysa in dadka muusiga dhegeysta ay badi la ildaran yihiin dadka qalbiga madow, laakiinse dadka kale ay ka caafimaad qabaan. Haddaba daawadow, muusigu waa xanuun iyo halis caafimaad ee ka badbaadso nafahaaga iyo cidda aad jeceshahayba. Intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeennii. Haddii aad nala joogtay ilaa hadda, waan ku hambalyaynayaa. Intaadan bixin haddaanad nagu soo biirin, nagu soo biir. Like-ta iyo share-tuna waa